Soomaaliya cudud qaran diyaarintooda si weyn u socota waxay ku soo jeedaan dhulkii ay u dhasheen ciidii xuduntoodu tiilay waxay soo socdaan iyagoo ku gaashaaman qalab iyo aqoonba waxay ka simayeen damqashada raadadkii ay qulubtooda ku reebeen hadimooyinkii cadaawaha cidina aanay ka nabad galin ee muddo tirsiga halaagiyo dhibkiisu gashay gugii 16aad Soomaaliya waxa gabaabsi ah warwar kasta oo hore looga qabay in mar uu laga kaco halkii lagu kufay daraad nayaayiro dhab loo jeedaalinaya la isla wada yaqiinsan yahay yididiilo dadaal lagu kabay baa dhan kastaba ka socota Ismaaciidan oo dheeliya xagal daac ka dheer yahay ayaa si xawliya ku socda waa dabada yartii dalkan u dhalatay waxay galeen ciidamada kumanaan iyo kumanaan ku labisan aqoontii militariya tiknoolajiyadii u dambeysay ayaa dalka ku soo jeeda kumanaan kale waxay ku sii qulqulayaan faramaha cadaawaha dalku wuxuu ku wada jiraa 4 marxaladood oo isbarkan xaalad dagaal oo u muuqata in si dhab ah loo guddoonsaday ka taqalluska al-shabaab yagleelidda cudud qaran oo ahmiyadda koobaad labaad saddexaad iyo afraad ba laga dheehanayo in la siiyay dhismaha ciidamada la dagaalanka musuqmaasuq iyo reform aan hal meel ku eekeen waxaa dheer intaasi tirtirka aragtiyihii guracnayd ee adduun weynaha idilkii ay ka wada haysteen Soomaaliya aan dhugane dhanka ciidamada si weyn ayaa shacabka Soomaaliyeed gudo iyo dibadba isha ugu haya in ciidamo dhismayaan in da'yartii dugsiyada sare iyo jaamacadaha ka baxay xafiisyada ay ka doorbideen dirayska iyo ciidamada in ciidamada xooga uu hoggaanka u hayo Generaal Daawud Allah u naxariistay dabadeed generaalkii labaad ee ugu daayaraa taariikhda ciidamada xooga dalka waa Generaal Odaywaaye oo isagu waliba jaranjarada ciidanimada ka soo koray bilowgii halganka muddada dheer ee cadaawaha lagula soo jiray shacabku waxay kaloo ka dheregsan yihiin inay meesha ka baxday mushahar ciidan laga cunay iyo musuq halakeeyay oo ay taasi bedeshay ciidamo dhab u dhismaaya iyo mushaharaad ciidamada 100% loo kordhiyay waxay kaloo shacabku wada daawanayaan in faramaha cadaawaha guuro laga keeno Sida xalku suwayahay Soowaad lama garani soo ma jeestayaasha iyo in su'aalaha haatan taagan ay qayb ka yihiin gobolladii dhexe goormee cadaawaha laga xoray ciidamada shisheeye intee ka hadhay sagootintooda qaraxyadii bilaha iyo toddobaadlaha ahaan jiray waa kuwan meesha ka sii baxay dabadeed maxaa xigi hase ahaatee aynu eegne dalku kolkuu daraad dumay dabadeed la jabay dhan aanu nabadgelin ciidamada qalabkooda iyo xoryahooduba ay israaceen waa tii laga dhigay galangal iyo goobaar haddaba kamanaanka daayartee soo dhammaystay aqoonta commandosta military ciidamada ka kooban cirdhul iyo badba ee hormo dalka ugu soo wajahan marka laga yimaado faramaha cadaawaha ay ka dagaalgalayaan xagee loo diyaarshay xeryihii dumay barkood la gatay kuwa kale la qaybsaday qaar kale shisheeyaha la siiyay dib ma loo soo celiyay masal la dhisay xeryahaas hawl baa taale maxaa diyaar u ah ciidamada
iyaba waa su'aale xaggee bay degi dalku xaalad dagaal buu geli wuuna ku jiraa si cadaawaha dagaalkooda looga biyo keeno iyana waa su'aal kale maxaa u qorshaa cisbitaaladii dumee damdaguugan iyo digaandagaha laga dhigay doraad tani waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho horuu socod geedi nololeed iyo dib u dhis aan baqal laga qabin inuu bariiqo ayaa ka socda ciidamada xeryihii dumay dib badankooda loo dhisayaa oo shaqaa socota tani waa xiradii Dimaayo oo diyaarinteeda waxba aanay ka dhinayn ciidan liidu waxay Soomaaliya batay magansiga shisheeyaha ugu xandhigashadii cadaawaha dalkoo baylah galay badiya beriba xanuunka iyo dhibaatadii cadaawaha oo iyana guri looga ilmeeyay waxaynu diiradda wada jir u saari doonaa maxaa ka lilaahiya dib u soo noolaanshaha iyo diiladii naxashka saaran